السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وهلية إن شاء الله تعالى وحنا كان إنكم وسوا قدبنيا عشر كيني شنات وحنا هو إنكم وسوا قدبني عشر كيكوات إلا أفراد سؤاله سي وتحنا إن شاء الله تعالى عشر كان شناتنا وحنا أكل قاضية إلا بقيبوت قيبت كوات أو ريسيكو فشتورسا إيو ريسيكو فوديرين هي قيبت لبات أو شور بروسيسن فهمك qatarta risiko fashtoralsa iyo risiko fudheerin macnaheedu wuxuu noqonayaa marka qofka doonayo inuu faham guud ka qaato qatarta waa in qofka uu fahmaa xiriirka ka dhaxeeyo ihtimaalka iyo natiijada fahamka kale oo risiko fudheerin oo iyadana noqonaysa macnaheeda qiimeynta qatarta macnaheeda iyadana waxa uu noqonayaa in qofka uu fahmo khatarta uu leeyahay falka saas oo kala qaadayna labadaas hadii ilaahaymo marka laga hadlayo marka shore processan oo habka wadista gaariga dhowr qaybood ayuu kala baxayaa midalan dareenka oo kale inaad ku fiicanta inaad go'aan qaadashada oo kale marka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo qiimeynta iyo fahamka guud مثلا فهمك جود oo kale marka laga hadlayo waxa muhiim ah qofka inuu faham guud uu ka qaata waxa isaga markaas ku hareereysan ama xindaabka marka isaga uu ku jiro marka uu gaariga uu wadayo oo kale مثلا shil baa dhacay markii waa inaad fahantaa meeshaas inuu shil ka dhacay maadaama aad fahantay inuu shil dhacay maxaa loo baahan yahay marka inaad go'aan qaadato seed go'aad u qaadanaysaa waxaad go'aan u qaadanaysaa shil baa dhacay wax gaari ka dambeeyna مثلا ma jiraan tusaale ahaan gaarigii ka horeeyana shil buu galay waa inaad fahantaa inuu shil galay waa fahantay go'aan baa qaadatay oo si haddaba aysan kuu seegin ama aadan u gafin darsi kasto ama cashar kasto aan ugu talagalnay inaan usoo gudbino mujtamaca Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Norway annagoo ujeedkeenu uu yahay inaan u fududeyno barashada teoriga oo aan mar walba insha Allah taala idin soo gudbin doono casharo ama darsiyo kala duwan si aad ugu xirnaato kanaalka waxa muhiim ah oo aan ka codsanayna inaad asxaabtaada la wadaagto aadna subscribe gareyso si casharada aan kula wadaagi doono aysan ku seegin insha Allah taala waad mahadsantiin inaad markiiba aad intaad dhinac marto aad istaajiso si aad u ogaato shilka dhacay waxa uu yahay iyo khatarta uu leeyahay oo kale taasna markii ugu horeysa soo qaadanay markaanu ka hadlaynay foshtiel oo kale gaari shil dhacay baa ku timid maxaa sameynaysaa markiiba inaad dabcan wixii hore aan soo qaadanay inaan ku noqdo ma hadda laakiin in processadii aan soo sheegnay aad raacdid inaad wadada aad xirtid inaad calaamad digtid inaad ambulance wacdo inaad boolis wacdo intaas baa loo baahan yahay iyo waxa kale oo iyadana muhiim ah maareynta seed ku maareynaysaa shilkaas dhacay ama khatarta marka iyada aad la kulantay see ku maareynaysaa maareynta waxay ku xiran tahay marka macluumaadka informationka oo markaas dhameystiran aad adigu gacanta ku haysatid wax information hadaad haysa markiiba waxba ma sameyn kartid laakiin hadaad information dhameystiran aad haysato intii hadda aan sheego kale ayaad sameyn kartaa qofkii baad waxaad u fidinaysaa caawitaan degdeg ah qofka haday hawada ku dhigan tahay neefta ku dhigan tahay oo kale inta ay kaaga imaanaysa ambulance oo kale waxa siinaysaa foshtiel wixii kale oo aad markaas aad leedahay waad sameyn kartaa maadaama marxalad qatarteeda leedahay ku sugan tahay adiga naftiga inaad adigana marka hore isbadbaadisid intaan qofka badbaadi ma korna adiga isbadbaadisid baan ka iloobay oo مثلا inaad reflex oo kale aad xirato مثلا hadii xilli mugdi lagu jiro oo kale oo winterka oo kale gaariga ka dambeeya si uu arko in meeshan shil ka dhacay oo xaalad aan caadi ahayn markaas lagu jiro oo adigina aadan khatar u gelin si gaarigaas uu kaaga istaago oo adigana aad u heshid caawitaan kale insha Allah taala darsigan waa qaybtii shanaad isagana insha Allah taala su'aalihiisii oo hal ama laba ah ayaan markiiba soo raacin doonaa waa idin salaamaya wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh